waxaanu rabnaa halka inaanu ka sheegno inaan maanta halkan kulan weyn xarunta komishanka doorashooyinka qaranka aanu ku qabanay kulankaasi oo aanu isugu yeernay dhammaan dadka daneeya arrimaha doorashooyinka haddii ahaan lahayd xisbiyada qaranka maxay golaha wakiilada baarlamaanka oo iyaguna dabcan sharciga diiwaangelinta arrimaha ka shaqeeya waxaanu isugu yeernay ururada bulshada iyagana qayb ka socda halkan markaa waxaanu ka qabanay ururada bulshada qaarkood maxay halka waxaan ugu yeernay si aanu u tusno ana ugu baraarujino hawshii uu komishanka doorashooyinku soo hayay oo uu soo qabanayay muddadii ka dambeysay doorashadii madaxtinimada 2017 intii ka dambeysay ilaa 2019 maanta aynu joogno waxaanu ka shaqeynaynaa hawsha maxay tahay casriyeynta qalabkaasi oo lagu gali doono qalabkaasi diiwaangelinta waqtiga ay haba dhacday waa ogeedeen oo markii wadankan laga qabanayay diiwaangelinta hab casri ah oo buuda indhaha ah ayaa lagu qabtay tiibaanu si casriyeynay maanta markaas waxaan ku soo bandhignay tayayn lagu sameeyay hanaankii qalabkii buuda isha lagu sameeyay iyo siyaabo ka sahlan sidii hore sidee loogu gali karaa diiwaangelin arintaas ayaanu maanta u soo bandhignay waxaanu siinay shirkado fara badan oo caalami ah ayaanu markaa hawshaasi aanu tixgelinay shirkadii waxay noo soo direen khubaro caalami ah iyaguna oo nagala shaqeeyay tan u dambeysay imika aanu galay waxaa khubaradu ka timi South Africa dalka Koonfur Africa oo ay hadda markii u dambeysay aanu toddobaadkan aanu ka shaqeynaynay marka komishanka doorashooyinku qaranku haba yaraatee hawshaasi kama nasan oo ilaa waqtiga kana hawshaas aan ku jiray maanta marka komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu ku faraxsan yahay in ay ku guuleystay in maanta mar allaale marka diiwaangelin la qabanayo in aanu u diyaarnahay oo sidii hore si ka fudud ay u qabsoomayso waliba waanu sii wadnaa inta diiwaangelin kale la galayo waanu sii wadeynaa hawsha ilaa inta aanu joogno anagu komishan ahaan waanu sii wadeynaa hawsha waanu sii diyaarinaynaa waanu sii casriyeynaynaa waliba waanu soo bandhigi doonaa mar kaleeto oo aanu arintaasi aan ku agajin waxaanu kala guuleysigeenu ku guuleysanay waxyaabihii ka soo baxay baanu dub isugu yeernay dadka daneeya doorashada ama diiwaangelinta oo ugu horeeyay saddexda xisbi qaran 2018 February March baanu qabanay halkan ku qabanay wax la lesson learning ama duruustii laga bartay diiwaangelinta waxay markaa feedback aanu ka helnay ama warkii aanu ka helnay ama comments aanu ka helnay xisbiyada iyo civil society-ga iyo dadka daneeya oo ay ka mid yihiin oo ku jiraan qaran bixiyaashu ayaa waxaanu ku dabaqnay inaanu tayadii kor u qaadno iyo hanaankii diiwaangelinta oo wixii ka dhinaa aan ku soo darno waxaa kaloo ku jirtay in qalabka ama systemka ama nidaamkeenu qaadanay uu noqdo mid waara oo mustaqbalka sii socda oo commission uu dhibo oo sustainable ah horta anagu de waxaanu dhex u nahay commission baan nahay institution dhisan baan nahay institution u qaabilsan doorashadan iyo diiwaangelinta qaranka baan nahay saddexda xisbina dhex baan nahay annaga waxa naga go'an farsamadii iyo aqoontii iyo qalabkii iyo waxqabadkii baynaanu diyaarino waanaanu diyaarinay waanaanu la xidhiidhnay saddexda xisbi markaa dee iyagaa ikhtiyaarka leh iyaga weeye dadka wax loo qabanayaa iyaga weeye dadka ku gelaya doorashada qalabkan aanu casriyeynay iyagay ahayd inay yimaadaan su'aalo naga weydiiyaan fahmaan waxay doorashada ku geli doonaan waayo waxaan maqlaynaa xisbigu inuu leeyahay doorashada waan ka qayb gelayaa dhacaysa 12 December qalabkii lagu sameynayna ma daawanayo oo haddaan su'aal ka qabo maxay aan idinka su'aalayo ma imanayo dee laba isqabanaya maaha waanu la hadalnay waraaqana waanu qornay waanu la hadalnay waanu ka dhaadhicinay inay tanu aanay ahayn wada shaqeynta annaka iyo iyaga ka dhaxaysa waayo anagu shakhsiyan isuma haysano mid ka dhaxaysa maaha waa mid institution laba institution ka dhaxeeya xisbi iyo institution u shaqeeya marka waajibaadkayga anagu waanu gudanay telefoonna waanu dirnay waraaqna waanu qornay ikhtiyaarka de xisbiyada iyaga leh laguma khasbayo doorashooyinka qaranka mar hore laga saarayba waayo
markay go-aamiyeen guurtigu in 12 December doorashadu dhacdo annaka mandate-kaygu wuxuu ku eegayay 29 November inta mandate-kaygu ku eegyahay qaranka waan u shaqeynaa shaqadii qaranka waan u qabanaynaa waan u shaqeynaa laakiin way ka baxsantay doorashadu annaka mandate-kayga ku joognaa